soo gal walaal mudane balan miyaad nala lahayd magacaygu waa Suhayb Cadow xafiiskana maanta balan ayaa lahaa. okay Suhayb Cadow walaal magacaaga waan haynaa maxaan kaa caawinaa walaal walaal shaqadoon ayaa ahay takhasuskeyga waa engineering. walaal Suhayb maxaad cadeymo aad haysataa waraaqooyin shahaado maxaa haystaa walaal waa kuwan walaal. okay walaal jaamacadda Muqdisho ayaad wax ka baratay Soomaa walaal aniga wadanka dhexdiisa wax ku soo bartay mudane jaamacadda Muqdisho ka soo baxay intii dagaal iyo qaraac iyo isbursasho iyo waxa ay jireen wadanka dhexdiisa anagu ku jiray meelna ugu ma bixin waxaan ku faraxsanahay maanta in shahaadadeyda soo qaatay jaamacadda aan ku soo dhameeyay Muqdisho dhexdeeda shaqana aan ku raadsan karo wadankii dawladda iyo wadada kala dambeyn iyo xafiisyo shaqada in loo furay maanta wixii ka dambeeyay waxa uu talagalay inaan shaqaysto shahaadadeyda wadanka wax ugu soo bartana inaan wadanka wax u qabto taas ugu talagalay mudane hambaliyo mudane waxaan kugu hambaliyanayaa adigoo wadankii in badan joogay wadankii marxalooyin fara badan oo ka soo gudbay oo soo maray ayadoo dhibkaas ku jiro adigana aad dhex taagneed aad wax ku baratay haddana aad diyaar u tahay waxaad baratay inaad wadankii wax ugu qabatid mar labaad ayaan ku leeyahay hambaliyo waxaan rajayn doonaa inaan shaqo ku siin doono aad iyo aad ugu shahaadooyinkaagina waa kana aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka helo wadankayga dhexdiisa xafiis shaqo ugu raadiyo shahaadooyinkayga wixii wax ugu qabto aadana ma soo mudane adiga mudane soo gal walaal Hello Zaman. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Walaal Walaal fadhiis kara. fariis soo dhaw waaw meeshaan maran baa ku lahaa fadlan magacaaga walaal magacayga waxaa qadar qadar cabdiraxmaan xuseen waan hayaa walaal magacaaga maxaan kaa caawiyaa walaal walaal waxaan ahay wiil shaqadoon ah ka imaad qurbaawi ah marka waxaan maqlay meeshaan inay tahay xafiiska shaqadoonka marka baasboor waxaan watay oo Yurubiya marka waxaan rabaa inaan marka shaqooyin wax okay waxaa tahay nin qurbaha ka yimid waxaan rabtaa halkan inaan maaragtay aan shaqo kaaga fiirino maxaad haystaa walaal oo cadeymaa ama warqad shahaado oo kale aad haystaa kama maan baasboor citizen wata oo guud Yurubiya maxaa cadeynta sheegaysa saa wax kasta ka qaadaysan baasboorka citizen-ka ka wataa marka waxa weeye ninka baasboor citizen wata Muqdisho dhan baa u kacday marka waxa weeye aniga shaqadeeda banaan weeye markaan isku hadal ma baasboorka daawato citizen aan baan Yurubiya marka meel kastoo aad tago Soomaaliya inaan ka shaqeeyo markaan in lagu qiimeeyo in baasboor citizen wata Yurubiya adar waxyaabo fara badan baa kaa maqan horta baasboorkaaga harayso waxyaabo fara badan ayaa kaa maqan horta qalad baa kaa dhaadhacsan adar haddaad ku ogeyd shalay arrimahan iyo waxaan hadda ka hadlayso barnaamijka inuu meesha ka jira hadda ma jirto Muqdisho hadda waxaa ka jirto maxaad baratay maxaad haysataa oo shahaada maxaad u qalantaa marka niyow aad iyo aad baad ula go'san tahay waana ka xumahay wax hadda aan jawaab aan ku siin karo male midda keliya aan ku dhigi karo aan talo ku siin karo waxay tahay wiil da'yar ayaa tahay waqti kaama tegin waxaan ku dhihi lahaa jaanis ayaa haystaa wadankaaga ku soo laabatay ma looma baahno qurbaha waqtigaad ku soo lumisay hadda inaad iska lumisid Muqdisho jaamacadda Muqdisho tag soo diyaari hadda isdhis kadib jaaniso fara badan ayaa wadankaaga yaal aad ugu shaqaysan karto oo inta hadda waqti aad qurbaha ku soo qaadatay waxba maadan baran miyaa iskuul maadan aadan miyaa maxaad baratay maxaad qaban jirtay su-aasha ay weydiiso su'aal waxa weeye loo baahan yahay tirada kale Yurubta waxa weeye brother shaqooyin badan baa jira waxa weeye marna boor ma dareemaysid mar waxa weeye waxaa galaysaa bustaa galaysaa hotel aad dhaqaysaa musqulaha dhaqaysaa waa nadiifinaysaa hadday ku goosna brother waa seexanaysaa dowladda waxaa dhan ku qato fahantaday marka barnaamijkan xaggaan shaqada ka ah xaggaas waxa waa laga fudeeyay fahantaday marka hadda aniga waxaan rabaa wadankayga saaxiib inaan wax ka qabsado aan shaqaysto aan wax ku qabsado Yurub baa iga soo dhamaatay ma fahantaday sida wadankayga wax ugu qabsan karaa wax u baran karaa bal inaa ila talisay aad tale siin kartid
boorkan waa soo akhristay waxaa weeye meeshaan xafiiska shaqadoonka. nin walba hadda maxaad baratay maxaad haysataa oo aqoona maxaa shahaado wadataa shaqa la isku siiyaa haddii shalay isku siin jiray in adeerkay oo ahaa kan iyo waxyaabo qaldan la aaminsanaa hadda way dhammaatay maxaad haysataa oo taqaanaa maxaad u qalantaa marka wiilyahow baasaboorkan iyo waxaanaad ka hadlaysid way dhammaatay waxaan ku dhihi lahaa aqoontaada kaasoo jaanis haystaa waqti kaama tegin jaamacadda muqdisho in aadiyan kuula talnaa marka haddii aad igu daraysid wax ra'yiya oo micnihii oo aad dhehaysid mustaqbalka ka faa'iidayso fuujarka dambe. walaal talada kaliya aan ku siinaya hadda waxay tahay ee ku habboon inaan ku siiyo horta waddanka ayaad hadda joogtaa way ka duwan tahay shalay qurbaha aad joogtay hadda jaanisyo fara badan ayaa haystaa waddankaaga aad joogtaa dadkugu diina dadkugu dhaqana dadkugu afa marka walaal waxaan ku leeyahay haddeertaan isdiyaari waxbaro jaamacadaha kala duwan ee soomaaliya dalkaaga ku yaala midaa doonta aad fakaltigaa doonta baro isdhis dalkaagii haddaad ku ogeyd shalay noocii hore maanta wuu isbedelay ninkii wax barto ayuu dalku u baahan yahay weli waqti kaama tegin wiil da-yar ayaa tahay waxaan ku leeyahay jaamacadaha kala duwan ee waddankaaga ku yaala mid ka mida tag waxbaro waqti waa aad haysataa midaas ayaan ku leeyahay balanteenu waa inaad waxbarato dalkana wuu kuu baahan yahay dalkana wuxuu u baahan yahay dhalinyarada maanta wiil wacaynaa ku leeyahay okay aad baa mahadsan taladan waxa loo baahan yahay waana kaaga duwan barada muxuu yidhi wiilka waxaan ku qoslo maanta ay tusay muxuu yidhi yurubaan ka imaaday waxaan rabaa inaan xafiis fariisto aan shaqo helo ma uu oga miya ciyaal diaspora goormaya sheekadaas laga tegay waddankii sacarka inuu ka baxay oo maanta ay tahay ninba ninka uu ku aqoon sareeyo inuu meesha uga horeeyo ee dhammaatay waxaa iga sii darneed markaan su-aalay maxaa ku haysa qurbaha musqulaan dhaqaayo kulaha marna waa seexanaye hay-adaha markaas aan hoos joogno ama waddankina haystaana qaabilsanaa wallah waxaas yaab waaye yaaba waxaas nolol maaha waxaaba ku faraxsanahay maanta anigoo waddankayga jooga oo waxaan soo bartay xafiis ku fadhiya oo dadka aan weliba wax u qabanayo ay yihiin ubadka soo baxaya maanta oo walaaliya oo soomaaliya taasaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhalinyaro waxaa idiin sheegaa kuwa reerka qurbaha oo qurbaha jooga diaspora waxaa idiin sheegaa luuqad jarmal aad ku hadasho ama luuqad swedish aad ku hadasho ama luuqad norwegian aad ku hadasho aqoonna ma noqoto baasaboor aad qaadatana shahaado kuuma noqdo beri waddankaada markaad ku soo laabato waxaa ku sugaayo dekeda iyo jawaan weyn inaad dhabarka saarato balanteena waa waxbarasho ninkii wax barta ayuu waddanku sugaaya oo keliya